ma ogtahay in WhatsApp-kaaga lagu isticmaali karo adigoo markaa wax waran u hayn muuqaalkan waxaan idin la wadaagi doonaa sidee baad u ogaan kartaa in WhatsApp-kaaga lagu isticmaalayo iyo sidoo kale waxaan idin siin doonaa farsamooyin aad isticmaali kartid si markaa aad uga hortagto in WhatsApp-kaaga lagu isticmaalo marka soo dhawaada waxaan doonayaa muuqaalkan intaan u guda gelin inaan ka codsado inaad videoga noo sii share gareysaan si markaa dad badan oo aanan ogeyn in WhatsApp-kooda halis uu ku jiro ay uga faa'iideystaan sidoo kale muuqaalka inoo la gareeya soo dhawaada markaas la eegna videoga marka hore si aad u tijaabiso in WhatsApp-kaaga lagu isticmaalayo oo markaa qof kale uu fariimahaaga akhrisanayo waxaad samayn doontaa WhatsApp-kaaga inaad furto kadibna waxaad taaban doontaa halkaas sare meesha sharjiga ee midigta kor saddexda dhibcood dhinacan ka xiga taaban doontaa kadibna waxaad sii geli doontaa meesha ku qoran tahay linked devices halka markaa furto waxaa ka arki doontaa haddii WhatsApp-ka lagu isticmaalayo halkan hoose ka arki doontaa device-ka markaa ku isticmaalayo tusaale imika aniga mobilkeyga hal device baa ku xiran device-ka waxa weey mid anaan ku xiray waxaan doonayaa markaa tusaale aan tuso marka haddii halka ku aragto device ka muuqda oo kale oo dheeraad ah taas macnaheedu waxa weey in WhatsApp-kaaga lagu isticmaalayo oo markaa qof kale uu kula akhrisanayo fariimahaaga marka haddii aad ku aragto device kale oo halka ka dhex muuqda waxaad samayn doontaa inaad click siiso kadibna aad log out dhahdo marka haddii log out aad tiraaho waxaa dhici doonta in device-ka laga saaro WhatsApp-kaaga oo markaa dadka fariimaha akhrisanaya sida kaaga baxaan sidoo kale haddii aad aragto in WhatsApp-kaagu uusan lahayn wax device taamcineed waxa WhatsApp-kaaga security-giisu fiican yahay oo markaa cidna fariin kula ma akhrisanayso haddii aad doonaysid markaa inaad adigu qof kale oo dheeraad ku darsato waxa dhici kartaa link device ama haddii aad doonaysid qof kale inaad fariimihiisa dhageysato halkan kaale kadibna link device ka bacdina ku xiro WhatsApp-kaaga kale haddaba sidaba uga hortagi kartaa in WhatsApp-kaaga markaa qof kale uu kula isticmaalo ama fariimahaaga uu akhristo si aad uga hortagto in WhatsApp-kaaga lagu isticmaalo waxaad u baahan tahay security WhatsApp-kaaga inaad xoojiso waxaana samayn kartaa inaad taabato saddexda dhibic xagga sare midig ku yaalo kadibna aad ka sii doorato setting inta wixii ka dambeeya marka aad tagto settings-ka waxa ka sii tagi doontaa halka ku qoran tahay privacy kadibna waxa tagi doontaa halka hoose ee ku qoran tahay upload soo haddii aad mobilkaaga upload ku xirato taa macnaheedu waxa weey qof kasta oo isku dayo WhatsApp-kaaga inuu galo kadib waxa la weydiin doonaa inuu password geliyo ama uu geliyo pattern ama biometric ama indhaha ku xirata maada faro ku xiratay in marka la weydiiyo security inuu ka geliyo marka taas aad waxay keenaysaa qofkii inuu san awood u yeelan inuu mobilkaaga galo kadibna uu muxuu ahaa link device ku xirto hadhowna fariimahaaga uu halka ka akhristo marka qaabka ugu fiican waa taas sidoo kale waxaad samayn kartaa in mobilkaaga dadka ka ilaashato aan cidna u dhiibin sababtoo ah security WhatsApp-ka aad iyo aad buu u fudud yahay qofka inuu fariimahaaga dhageysto haddii marka aan adigu ka hortagin muuqaalkeena aan ugu talagalnay inaan idin la wadaago sidee aad u ogaan kartaa fariimaha WhatsApp-ka ee lagu dhageysanayo halkaas buu ku eegyahay waxaan rajaynayaa muuqaalkeena wax badan ka faa'iiday hana ilaawin muuqaalkeena noo sii share garayso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.